reer jallaqsi oo galabta heshiisa oo ayaga maamulkooda heshiis yihiin oo ayaga qabiilaadkooda heshiis yahana galabta waa ka tegaynaa ilaahayaan uga mahad celinaynaa intay ka shaqaysaan uga mahad celinaysiin ninkaan shalay loda iyo ariga gadanahay oo reer baadiyaha gobolka baaxadiisu intaan leeg tahay dowladdu waxay ugu soo magacabaa iladiina ir war aniga xad aqoontayda ka rabtiin maanaa ilmu iskuul idigu dhigaa aniga gobolkan odayaal layga soo dhigay dhaqanka soomaalidaan aqaanaa aqli bini'aadana wax ku maamulow haya dadka soomaaliyeed waxa ka dhexeeyaan aqaanaa dadka reer hiiraan waxa ka dhexeeyaan aqaanaa shaqada dawligaana nin walba wuxuu yaqaanaan u diraa kadibna waa ku kontaroola shaqada dawliga nin walba wuxuu yaqaanaan u xil saaraa gabar walba waxay taqaanaan u xil saaraa kadibna waa ku kontaroola aniga qofkii sidii aan rabay u qortona wax wanaagsan iyo xun waa kala garan karaa suma qofkii sidaan rabay u qorto waxaan raba ka shaqeeyana shaqo kastoo loo diro waa ku birimayaalayna qofkii ku fashilmana waa ku ciqaaba aniga intaas waa qaban karaa waxaa kale ugu haysatay ilmo iskuul igu dhigi maayo waxaan ka wadaa maamulku wuxuu ku fiican yahay isku raacdeen hadalkaa maamulka ula jeedaa wuxuu ku fiican yahay isku raacdeen inuu amniga ku fiican yahay waa isku raacdeen in wax yani qashin oo dadka degmooyinka kale hadda yiraan waxyaabaha ka jira inayna meeshaa ka jirin oo meeshaa dowladda isxirayti qofkii dibilaha la qabanaa iyo amni laga shaqeyn inay ka jirto waa isku raacdeen laakiin waxyaaba ka kale hadda in carabka soo marya aan la rabin laakiin maamulka gaar wala hadli doono aad ku eedeyseen waqti waxaas horta ma u sheegteen mase saas inuu yeelaan jeclaalahay ma tireen iyaad u sheegteen ma idiga diideen maamulka nimankaan maamulka idiga diideen mase adinka naftiina ka hagradow haya meeshaas isla shaqaynta inay ka maqantaan u qabaa waxaan idiga codsanaa maamulka welina hadda aniga dacwada ah uma soo gaarin war maamulkan waxaas waa ku fiican yahay laakiin waxaasuu ku xun yahay war waxaan ku xuntahay dhaafa sidaan fiican yahay haddaan dhahnada waa laga diiday dacwadaasu waagina soo gaarin waxaan ka wadaa hadda kadib wuxuu ku xun yahay wuxuu ku fiican yahay waa ku fiican yahay ku garab istaaga maamulkan waxay ku xun yihiin oo inay tubta haya ka leexdaan ay tub kala qaadan rabtiin waxay ayaga hoos ku sheegnay bal hoos ugu sheega annagana waxaad noo soo gudbideen waa u gudbinaynaa waxaan leynahay waray meeshaas gow iska dhah mid ka mid aan koru sheega oo maxay tahay odayaasha dhaqanka talaad maalinkaan meeshaan ka gudbinno oo ilaahay idmo waxaan idin faraynaa maamulow odayaasha dhaqanka kuwa ugu habboon ugu dhexdhexaadsan ugu cadaalad badan ugu aqoon badan iyo ganacsatada inad guddi idila shaqeeya oo marjac idii ah oo adinka wixii laydii galdaran yahay dadka idiga xigsada oo adinka wixii idiga qaldama idila saxa inaad ka samaysataan odayaashuna inay idiga yeeli doonaan oo u malaynaya ganacsatadu walaalayo aad iyo aadaad u mahadsan tihiin dalkan kala guurow joogaa doorasho qof iyo odahaan loo socdaa ilaahay haddoo u idmo adinkaaba qofkaa rabtiin iska dooran doono hadday nimankaanu hadda qof kastoo bini'aadanuhuna waxna waa ku xun yahay waxna waa ku fiican yahay buga qofka la tilmaamayo marka waxaa laleeyahay war horta qofkaanu wuxuu ku fiican yahay wuxuu ku xun yahay yuu u badan yahay xumaantu u badan yahay mise wanaaggu u badan yahay xumaantu u badan yahay haddii la qofkaas qof xun waa la yidhahda dabageed qof xun waa la yidhahda haddaba wanaaggaygu badan yahay xumaantaydu yartaana dabageed waa qof fiicanaa laleeyahay qof kastoo bini'aadanna saas waa nimankaan hadda annagana waa isku miisaamaynaa waxay ku fiican yihiin dowlad ahaan ilaa annagana nimankii keenaan nahay moogtahay dowladdii keentaan nahay adig kale bulshadii loo shaqaynayaa tihiinoo waxaad xaq u leedihiin waxaasna waa ku fiican yihiin waxaasna waa ku xun yihiin aad xaq u leedihiin waxaana idiga codsana marka horaan isku sheegnay warkaase inagoon miisaan jiro miisaan boqolkiiba boqol malaa'ig noqon maane boqolkiiba boqol wada noqon maane horta intii ku fiican yihiin intii ku xun yihiin yaa xun masaladaasna in meesha laga fiiriyo waa rabaa ayagana sidaas inay korontidii biyihii si dadkii u soo degaan ay ka shaqeeyaan annaga dhibaatadii dhacday waa qorannay guryihii gubtay iyo wixii ku dhex gubtay iyo dhibaatadaasoo dhan waa noo qoran tahay beesha caalamkood dowladda soomaaliyeed ee u sokaydaan qoraal ahaan iyo qoraal ahaanba ku gaadhsiinaynaa ilaahay haddoo u idmana wax alla wixii ka yimaada oo ilaahay og yahay na waa soo gaarayaan jallaqsi haddii ilaahay idmo ilaahay hadduu idmo waa soo gaarayaan
waxaana ku baaqaynaa beesha caalamka oo dowladda soomaaliyeed kow ka tahay iyo beesha caalamkaba dowladda soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa iyo beesha caalamka waxaan ka codsanaynaa